السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan halka ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bacda salaam waxaan leeyahay horta ma sha Allah waa maalintii ugu horeysay aan arko dad Soomaaliyeed oo hadlaya ama dhul Soomaaliyeed oo xanaaqsan. Waayo sababtu ay tahay hore loo bixiyay badaha Soomaaliya. Dadkii hore u bixiyay baa imikana wax bixiyay. Waa tii badda Soomaaliya la bixiyay oo farmaajo soo celiyay. Maxay ahayd waa tii Muqdisho la bixiyay dikadeeda welina waa la haysto. maxay ahayd dhul badan oo khiyaanooyin lagu bixiyay waa jiraan. Marka waxaan leeyahay anigu horta mas'uul waxa ka ah imika arrinta dhacday dhibaatada ah oo saldhigyada dekad la bixiyay imika kaliya maaha. waa Itoobiya wadankii ku qabsanaysa ciidan wadanka Soomaaliya. maxay ahayd waa aabe iyo hooyo waa Xasan Sheekh baan leeyahay. waayo dalka Soomaaliya isaga xukuma isagaana isugu yeeray musabixiyo maxay ahayd Abiy Ahmed markii shirarka ay joogeen Djibouti waa la sheegay isagoo la joogo kamarada laga qariyay. odagan Ismaaciil Cumar Geele shaydaanka hina dalka Soomaaliya ma maamulo shaqana kuma leh. aabe iyo hooyo waxay leedahay Xasan Sheekh isagaana saxeexay isagaana ku lug leh. waana dadkii hore u bixin jiray badaha dhulka Soomaaliyeed. dadkii hore u bixin jiray weeyaan. marka ay leeyihiin farmaajo afar dikadood bixiyay farmaajo afar dikadood bixiyay oo meeya afar dikadood bixiyay waxay qaadan waayeen wixii la siiyay. طالين بان الله باتين إلهي أنك بقين maxay ahaydey iyaga doonayay inay bixiyaan umar ma siiyonayay iyaga senkar la doonayay inay siiyaan waana siiyeen. maxay ahaydey bad kaliya imka maaha waa dhul iyo bad wada socda. awal ba iyaga Itoobiya u dheeranaya Soomaali maxay ahaydey oo si ay ku soo galaan waayay baana la yiri waa wada dhalanay walaalana waa ehelka yagi waa walaalaha yagi iyadoo la leeyahay bay arkeen dabeedna dad siiyana waa arkeen dhulkii badii siiyay isku daray. waxaan leeyahay dadkaas waa dadkii hore ugu maamay wadanka Soomaaliya oo iibsan jiray dad iyo dunyo way iibsadeen. waxaan leeyahay sheekada Soomaalida shicibka la iska dagay yaacaya masaakiinta ama waxba ogeyn. ninka Xasan Sheekh la yiraahdo baarlamaanku talaabo inay ka qaadaan si degdeg ah xilka uga qaadaan isaga mas'uulka maxay ahayd saxiixa musabixi waqtiina aan soconaynin horena socon waayay. markii hore iyaga saxiix jiray oo dekada barbara saxiixay oo meel walba oo Soomaali laga qaaday iyaga saxiixay. marka waxaan leeyahay sheekada Xasan Sheekh waa ka dambeeyay isagaana saxiixay. qalinka musabixi mid shaqeynayay ma baahayn musabixi ha khaldanaado oo balaayi baas ha ahaado wuxuu doonay ha ahaado. maanta waa baakayso kaniisada Itoobiya ku jira laakiin mas'uuliyadda wadanka waxa laga xisaabtanayaa loo dhaariyay ninkii meesha yimi Xasan Sheekh la yiraahdo Xasan Sheekh la yiraahdo Xasan Sheekh ninka la yiraahdo weeyaan. waxaan leeyahay reer xamarow reer Muqdisho haysiir yeelina wanaag hadda rabtaan iyo Soomaalinimo ay dhabid ka tahay ninka xilka laga qaado isaga lagu tuntunsado waxa ay sheekay hadal la warwareeg. waa ragii hore u bixin jiray farmaajo nin wadani ah waa ninka soo celiyay wixii hore u bixiyay wixii hore u bixisan bad iyo hawo iyo cir iyo dhulba waa tuu soo celiyay isaga soo ceshay. waa nin wadaniya abaal koleeyay kelmaayo laakiin akhiraan leenahay wuu ilaahay ka abaal marinaya wanaaga uu sameeyay Soomaaliya uu sameeyay iyo dadka masaakiinta ah oo lagu dul ciyaarayo. ninka hadda jooga waa ninka dadka dhoofiyay dumarka dhoofiyay waa ninkii dekadii hore bixiyo saxiixay imikana isaga odagan isu yeeranayay waa ku tala galay oo ku ballamay xumaanta iyo maxay ahayd wadanka Soomaaliya la baabiyo Itoobiya gacanta loo gasho. Itoobiyana wuxuu og yahay waa taqaanaan xoolala ka helmaysan wanaagna ka helmaysan xawashi wax ka xumi ma jiraan ama rabaan noqotaan xawashi noqoto isku annaga waa suuqaya mid weeyaan suuqaya mid dayac iyo gaajo iyaga u dhintay dhulkoodii oo wax isla hayaan shirin oo dawladda dawirsanaya waxaad ka helaysaan dhulkiina u siiseen Soomaaliland idinka sheegi doona waxa u siiseen mar dambaadna garan doontaan. mid kale wada deriskaaga ah dhul lama siiyo markii hore say nagu soo marmarsiyoon garan waayeen de waa wax dad ku soo galay weeyo meel dad ka dheer hadda xuseen saxta ala laga oo dima taqaana wax ka faa'iideysid waa loo saxiixa laakiin jiraankaaga aad ogtay wixii xaaladooda ogtahay lug bay ku soo galayaan kaagana saarayaan dadka taa ku biyacba ku ilaaho oramaan nahay walaalaha weeyaan oo waxaad ka heshaan baa leeyahay. waxaan leeyahay Soomaaliya isu taaga dalkiina wadankiina isu taaga anigu nimanka kaanaad ka la moodana ka dhigateen ilaahiyada ma garanay bixinina madaxweynaha iyaga musabix iyo qaar ku leeyahay madaxweynaha iyaga musabix oo ku raxsan madaxweynaha iyaga musabix oo ku taageersan muxuu idin siiyay musabix ka heshaan dayac waa ku dhibateen idin xumo
hadda waddamo gaalaa gacanta idiin geshi xasan shiikhna wuxuu yahay baa ma jirinba waddamo afrikaan oo gaalo ah uu dawacay dalka soomaaliya inuu gacanta geliyo laakiin soomaali waxaan leeyahay kaca awal maanta markii ugu horreysay anaan ka weyay soomaali kacday oo xumaanta ka diirtay kuwa baarlamaanku sheega meesha joogan waxaan leeyahay ninka xasan shiikha xilka ka tuura soomaalida waxay ku mahmaadaa adduunyada nin noolow maxaa aragta kugu laaban maalin walba waa sheeko cusub maalin kastaba waa sheeko cusub tan maanta arkaysaan ka yaabantihiina mid ka daran baa soo socota haddaan dalka laga qabanin dadka noocaas oo kale kaca soomaaliya waan leeyahay soomaaliya kaca assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu